Ryu wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo caadi ah, balse waxaa ku dhacay gaari markaas ayuu ku dhintay, kadibna dib ayuu u dhashay isagoo ku sugan adduun kale oo sixir buuxa ah. Waxaa la siiyey awood uu ku adeegsado sixirka biyaha wuxuuna rabay oo keliya inuu si nabad ah noloshiisa uga nasto. Laakiin si degdeg ah ayuu u noqday sixiryahankii ugu awoodda badnaa adduunka isaga oo xitaa aan ka warqabin. Ryu oo ah wiil 15 sano jir ah, si lama filaan ah ayuu isku arkay meel caddaan ah oo yaab leh. Intuu la yaaban yahay waxa socda, nin dhaadheer oo timo huruud ah ayaa yimid wuxuuna u sheegay inuu dhintay. Ryu wuxuu si lama filaan ah u xasuustay in uu dhacay kadib markii uu ku dhacay gaari wuxuuna ninkii timo huruuda lahaa weydiiyey inuu yahay ilaah. Ninkii wuxuu u sheegay in uu la mid yahay malag oo uu u socdo si uu ugu diro adduun kale. Ryu wuu la yaabay in la siinayo fursad cusub, malagana wuxuu u sheegay in noloshiisa cusub uu si xor ah u noolan karo. Ryu waa nin degan wuxuuna rabay nolol degan oo fudud. Malaga wax dhiba ah kama qabin doorashadaas wuxuuna u sheegay Ryu in adduunka cusub uu leeyahay sixir, ku dhowaad 20% dadka ayaana awoodaya inay adeegsadaan sixirka. Ryu wuxuu lahaa hibo sixirka biyaha, malagana wuxuu u sheegay in lagu daadin doono guri nabad ah oo ku yaal dhexda keynta. Maadaama uu doortay nolol tartiib ah. Gurigaas waxaa yaalay cunto ku filan 2 bilood iyo xayndaab aan la arki karin oo ka ilaalinaysa bahalada. Ryu markuu toosay ayuu isla markiiba dibadda u baxay si uu u tijaabiyo awoodaha sixirka cusub ee uu helay. Wuxuu baaray gurigiisa oo lahaa hilib la qaboojiyey iyo qol bannaan oo qubayska ah. Sidoo kale wuxuu helay mindi iyo 2 buug oo heer bilow ah oo ka waramaya bahalada iyo dhirta deegaanka. Intaas kadib dib ayuu u baxay si uu u sii tijaabiyo sixirka, wuxuuna ogaaday in uu biyo abuuri karo isagoo keliya maleeya, mana u baahna inuu akhriyo wax duco ah. Wuxuu rabay inuu qubays kulul qaato, laakiin wuxuu awoodi karaa oo keliya inuu sameeyo biyo heer kulka qolka ah. Sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu dab shido. Wuxuu isku dayay inuu dab sameeyo isagoo usha isxoqaya, laakiin awood iyo xirfad uma lahayn. Wuu ka quustay laakiin wuu fekeray wuxuuna go'aansaday inuu dab shido isagoo qoraxda adeegsanaya. Wuxuu sameeyey muraayad baraf ah isagoo ku maleeya in molekuyulada biyuhu isku dhegayaan marka kulka laga xado. Markii uu ku guulaystay wuxuu u rogay barafka goobo wareegsan wuxuuna u adeegsaday muraayad si uu dab u shido. Waxa uu suurta gashay inuu helo biyo kulul habeenkii wuxuuna ogaaday in uu si toos ah u abuuri karo biyo kulul haddii uu isticmaalo cilmiga casriga ah ee sayniska oo uu la xiriiriyo sixirka. Maalintii xigtay isagoo cunaya hilib engegan ayuu fekeray in uu u baahdo awood weerar oo saraysa maadaama uu u baahan doono inuu ugaarsado bahalo markuu cunto ka dhammaato. Wuxuu bilaabay in uu biyo kubad ah ku gambo geed wuxuuna bartilmaameedka ku dhuftay markii ugu horeysay, laakiinse waxyeello ma geysan. Wuxuu isku dayay inuu sameeyo biyo cadaadis leh si ay awood u yeeshaan, laakiin wax cadaadis ah kuma filna oo waxay u ekaayeen sidii isagoo ka kaadinaya gacanta. Ryu wuu niyad jabaa, laakiinse wuxuu xasuustay in malagii uu u sheegay in sixirku ku xiran yahay male awaalkiisa, kuna fiicnaan karo keliya marka uu si joogto ah u tababarto. Wuxuu sii waday tababarka ilaa uu si joogto ah ugu dhufanayo geedka. Habeenkii Ryu wuxuu awooday inuu si toos ah u sameeyo biyo kulul. Maalintii xigtay wuxuu isku dayay inuu baraf sameeyo hawada dhexdeeda maadaama uu had iyo jeer ku riyoon jiray inuu adeegsado sixirka barafka ee loo yaqaan eglelan eh. Laakiin ku ganida baraf toosan waxay ahayd mid aad uga adag sidii uu filayay, wayna ka adkayd sidii uu biyo u ganayay. Laakiin Ryu wuu sii waday tababarka iyadoo uu ku celcelinayay dhammaan noocyada sixirka biyaha. Maalmo ayaa dhaafay wuxuuna aad uga xirfadaysnaa adeegsiga biyaha iyo barafka. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu go'aansaday inuu galo keynta si uu cunto uga helo. Wuxuu sahminayay keynta quruxda badan isagoo ururinaya dhir wuxuuna islahaa maanta intaas ku jooji. Laakiin markiiba wuxuu arkay doofaar xanaaqsan oo si toos ah u eegaya. Ryu wuu baraystay markuu arkay doofaarka oo ku soo ordaya, laakiin wuu iska leexiyey daqiiqadii ugu dambeysay. Doofaarku wuxuu jabay geed markaas ayuu Ryu dhiiraday si uu ula dagaalamo. Wuxuu baraf dhigay dhulka hortiisa si uu doofaarka ugu dhaco, doofaarkuna wuu siibtay oo si xawli ah ayuu u soo siibtay. Markuu soo siibtay, Ryu wuxuu abuuray baraf fiiqan oo badan kuwaasoo u jeeda dhanka doofaarka. Doofaarkii wuxuu si buuxda ugu dhacay tuurihii barafka wuxuuna isla markiiba dhintay isagoo sida farmaajo Swiss ah oo kale u googay. Ryu wuu yaabay inuu dagaalka ku guulaystay. Habeenkii markuu gurigiisa ku noqday wuxuu eegay buuggiisa bahalada wuxuuna ogaaday in noocaas doofaar ee loo yaqaan boore uu yahay kan ugu tabarta daran ee bahalada. Markaas ayuu arkay in inkasta oo buuggu ka hadlayo bahalo heer bilow ah, haddana ay jiraan 2 nooc oo gaar ah oo ku qoran dhamaadka. Midka koowaad waa masduulaayo. Kuwaasoo awood u leh inay gubaan magaalooyin dhan, waana in la cararaa haddii la arko. Bogga labaad wuxuu ka hadlayaa jinniyo oo ah makhluuqyo aan la aqoon asal ahaan, wuxuuna buuggu leeyahay allaha kuu gargaaro haddii aad mid la kulanto. Ryu wuxuu gartay in adduunku aad u weyn yahay, uuna u baahan yahay in uu si degdeg ah u xoogaysto. Maalintii dambe ayuu iska tuuray dharkiisii wuxuuna noqday tarsan dab ah isagoo mar kale galay keynta. Markan haad dilaa ah ayaa ku weeraray wuxuuna ka dhuuntay weerarkii ugu horeeyey. Shimbirtii weyneyd waxay siisay goobayaal dabayl ah oo aan la arki karin. Ryu wuxuu gartay in bahalkan uu aad uga xoog badan yahay isaga. Wuu orday isagoo gadaashiisa baraf ka samaynaya si uu uga celiyo weerarka, sidoo kalena wuxuu biyo ganayay. Laakiin haadkii dilaa wuxuu ka leexanayay wax walba, kadibna si toos ah ayuu ugu soo booday, laakiin Ryu wuxuu isla markiiba sameeyey derbi baraf ah oo ka celiyey weerarka. Shimbirtii waxay ku dhacday derbiga barafka ah waxayna lumisay indhaheedii mid, markaas ayay dooratay inay cararto. Ryu wuu nasiib badnaa in ay baxday. Si kastaba ha ahaatee, intuu ka cararayay haadka, Ryu wuxuu lumiyey jihadii gurigiisa. Isagoo isku dayaya inuu gurigiisa helo ayuu si lama filaan ah u arkay haro ifaysa oo uu dusheeda taagan yahay fardooley madax la'aan ah iyo faras madax la'aan ah oo u taagan biyaha dushooda.
Rayu wuu yaabay markuu arkay makhluuqaas, fardoolayda madax la'aanna waxay fiirisay dhankiisa. Nasiib wanaag, Rayu si nabad ah ayuu ugu laabtay gurigiisa, wuxuuna sii waday sahminta kaynta, isagoo la dagaalamaya bahalo xoog badan oo uu baranayo sida loo adeegsado sixirka weerarka. Habeenkii mar kale ayuu aaday harada, halkaas oo fardoolayda madax la'aanta ahi sugayso. Rayu ma helin wax macluumaad ah oo ku saabsan fardoolay madax la'aan ah buuggiisa, wuxuuna la yaabay in sababtu tahay in ay yihiin bahalo heer sare ah ama xitaa aan lagu tirin bahalo. Laakiin arrintaasi waxba uma sheegin. Rayu wuxuu go'aansaday inuu la tababarto fardoolayda madax la'aanta ah. Wuxuu ku weeraray seef baraf ah, laakiinse ma uusan helin hal weerar oo sax ah. Fardoolaydu si degdeg ah ayay u weerartay, laakiin Rayu wuxuu iska difaacay isagoo adeegsanaya gaashaan baraf ah. Ugu dambayn wuu daalay oo dhulka ayuu ku dhacay, laakiin fardoolaydu ma aysan weerarin, waxay u muuqatay inay tababar siinayso. Markii uu kacay, fardoolaydu waxay u timid iyadoo wadata mindi yaryar oo dhalaalaysa. Waxay mindidii ku shubtay biyo kadibna ku qaboojisay, waxayna u beddeshay seef baraf ah. Waxay siisay seeftii Rayu, isagoo fahmay in fardoolaydu rabto inuu barto farsamadan cusub. Markii dambe, Rayu wuxuu mar kale la kulmay haadkii dilaa ee uu horay ula dagaalamay. Laakiin markan haadkii wuu isbedelay oo wuxuu noqday nooc ka xoog badan, balse wuxuu lumiyey dhammaan ilihiisii. Haadkii cusub wuxuu bilaabay inuu ku soo tuuro goobayaal dabayl ah, laakiin Rayu wuxuu si degdeg ah u sameeyey derbiyo baraf ah si uu isaga celiyo weerarada. Inkastoo uu ka dhuuntay weeraradaas oo xitaa ay ka dhex mareen gaashaankiisii barafka ahaa, haddana haadkii wuxuu noqday mid aad uga xoog badan sidii hore. Rayu waxaa ku qasbanaaday inuu cararo, wuxuuna awood u lahaa oo keliya inuu iska celiyo weerarada. Inkastoo uu ka dhuuntay weeraradaas oo xitaa ay ka dhex mareen gaashaankiisii barafka ahaa, haddana haadkii wuxuu noqday mid aad uga xoog badan sidii hore. Rayu waxaa ku qasbanaaday inuu cararo, wuxuuna awood u lahaa oo keliya inuu iska celiyo weerarada. Markii haadkii uu si xawli ah ugu soo booday, Rayu wuxuu sameeyey derbiyo baraf badan isdul saaran si uu u joojiyo weerarka. Isagoo isku dayaya inuu ku dhufto baraf fiiqan, haddana taasina uma shaqayn. Markaas ayuu haadkii adeegsaday weerar cod ah kaasoo isla markiiba burburiyey gaashaankiisii barafka ahaa. Rayu wuxuu gartay inuu hadda dhibaato weyn ku jiro. Laakiin haadkii ayaa si lama filaan ah u adeegsaday hilaac oo ku dhuftay, isagoo si dhab ah iyo si mala awaal ahba u naxiyey Rayu. Markii bahalku mar kale u soo duulay si uu ugu dhammeeyo, Rayu wuxuu si degdeg ah u soo bixiyey seeftii kiristaal ahayd, wuxuuna weerarkiisii ku celiyey. Wuxuu xitaa awooday inuu iska jaro weerarada dabaylaha aan la arki karin ee ay shimbirtu soo diri jirtay. Markii haadkii mar kale u soo duulay, Rayu wuxuu si toos ah uga dhuftay laabta isagoo seefta ku taagay. Shimbirtii waxay dhacday dhulka. Rayuna wuxuu ku soo socday dhankeeda. Isagoo arkaya inuu shimbirtan la kulmay keliya 2 jeer, haddana uu ka helay dhiirigelin xoog leh oo uu ku noqdo mid awood badan. Wuxuu ugu mahadceliyey haadkaas in uu ahaa dhiirigelin, kadibna wuxuu seefta uga soo saaray jirka si uu ugu dhinto si degan. Rayu wuxuu go'aansaday inuu gurigiisa ku noqdo, laakiin si lama filaan ah ayuu u arkay Mastuulay. Wuxuu is yidhi, maanta ayaa noqon doonta maalintaydii ugu dambaysay adduunkan. Laakiin si lama filaan ah, Mastuulaygii ayaa bilaabay inuu la hadlo isagoo adeegsanaya telepati, la hadal maskax ahaan. Mastuulaygii wuxuu weydiiyey haddii uu arkay haad madow, Rayuna wuu argagaxay isagoo ka cabsanaya inuu dilay mid ka mid ah shaqaalihiisa. Nasiib wanaag, Mastuulaygii wuxuu noqday mid degan, wuxuuna xitaa ammaanay Rayu oo uu ku bogaadiyey wixii uu sameeyey. Wuxuu tilmaamay in seefta uu Rayu wato ay tahay mid naadir ah, waa seefta boqorka riyooyinka. Rayu wuu yaabay, wuxuuna go'aansaday inuu wax badan ka barto adduunka isagoo ka faa'iidaysanaya Mastuulaygii saaxiibtinimo la ahaa oo magaciisu yahay Luwan. Waxay wada hadleen maalintii oo dhan. Laakiin galabtii, Mastuulaygii waxaa loo yeeray inuu gurigiisa ku laabto, wuxuuna u sheegay Rayu in laga yaabo inay mar kale kulmaan. Dhanka kale, malagii hore ee Rayu u diray adduunkan wuxuu si lama filaan ah u arkay in uu seegay wax muhiim ah oo ku qornaa xaaladda Rayu. Waxaa soo baxday in Rayu yahay qofkii labaad ee 10,000 oo sano gudaheed yeesha astaamo qarsoon, waana jiritaan weligiis dhalinyaro ah. Toddobaadyo kadib, Rayu wuxuu bilaabay inuu hilmaamo cunadii badda ka timaada. Sidaas darteed, wuxuu booqday xeebta, laakiinse wuxuu si lama filaan ah u arkay markab burburay. Wuxuu si degdeg ah u helay nin u dhow markabka, laakiin markuu fiiriyey si dhow ayuu arkay in ninkaas dhintay. Si lama filaan ah ayuu maqalay nin taahaya, indhihiisuna way iftiin sameeyeen. Tani waxay ahayd baniaadamkii ugu horreeyey ee uu la kulmo tan iyo markii uu adduunkan yimid. Ninka magaciisu waa Abel, wuxuuna xusuusanayaa in mas monster ah oo ah octopus weyn uu markabkii burburiyey intii duufaantu socotay, taasoo keentay in uu badda ku dhaco. Laakiin markuu indhihiisa furay, wuxuu isku arkay guriga Rayu. Wuxuu gartay inuu si mucjiso ah uga badbaaday, wuxuuna si degdeg ah u bilaabay inuu raadiyo dadkii kale. Markuu guriga ka baxay, wuxuu dareemay jahawareer sababtoo ah meesha kama uu garanayo. Markaas ayuu Rayu ka soo muuqday gadaashiisa. Abel wuu yaabay sababtoo ah inkastoo uu yahay dagaalyahan xirfad leh, haddana ma uusan dareemin imaatinka Rayu. Waxa kale oo uu ka yaabay dharkiisa la yaabka leh, laakiin wuu ka aamusay. Abel wuxuu isbaray Rayu, wuxuuna uga mahadceliyey badbaadintiisa. Rayu wuxuu u sheegay inuu keliya isagu noolaa markuu gaaray goobta, inta kalena ay horay u dhinteen. Abel wuxuu u sheegay inuusan ka welwelin raggaas maxaa yeelay waxay ahaayeen mucaamilayaal sharci darro ah. Laakiin ka hor intuusan faahfaahin, calooshiisa ayaa ruxantay. Rayu wuxuu yidhi, aynu cunno marka hore, wuxuuna geeyey gudaha guriga. Abel oo aad u farasa badan, markiiba wuxuu soo qaaday su'aasha dharka. Rayu wuxuu u sheegay inuusan lahayn dhar kale, isla markaana aanu haysan dhar uu ku tasho. Abel wuxuu yidhi, iibso markaas, laakiin markiiba wuu istaagay, isagoo moodaya in Rayu uu sabool yahay. Laakiin Rayu wuxuu sheegay in meesha uusan qof kaloo deganayn. Abel wuxuu weydiiyey inuu ugaarsado, wuxuuna xaqiijiyey.
markaas ayuu weydiiyey inuu adeegsado mindidaas balse Ryu wuxuu u muujiyey sixirkiisa biyaha isagoo sheegay in ugaarsi badan uu ku sameeyo sixirka. Abel wuu la yaabay sababtoo ah keliya kala bar dadka adduunka ayaa isticmaali kara sixir, isaguna wuxuu ka tirsan yahay qaybta aan awoodin. Taasi waxay ahayd lama filaan Ryu maadaama malagii uu sheegay in 20% oo keliya ay sixir isticmaali karaan. Markaas ayuu Abel weydiiyey Ryu inuu u raaco xeebta sababtoo ah wuxuu u baahnaa inuu xaqiijiyo wax muhiim ah. Intii ay sii socdeen wuxuu u sheegay Ryu in haddii ay la kulmaan khatar uu doonayo in isagu hogaamiyo dagaalka. Ryu wuxuu ugu jawaabay in taasi aysan daruuri ahayn, laakiin Abel wuu ku adkaystay sababtoo ah ma doonayo in mar kasta la badbaadiyo. Ryu wuxuu u oggolaaday inuu sida uu rabo yeelo, waxayna si dhaqso ah u gaareen markabkii burburay halkaas oo dhammaan meydadkii ay dabar go'een. Abel wuxuu is yiri bahalo ama badda ayaa qaatay, wuxuuna uga mahadceliyey Ryu badbaadadiisa, maadaama haddii kale uu la kulmi lahaa natiijadaas oo kale. Markaas ayuu yidhi waan waayey wixii aan raadinayay, hadda waxaan rabaa inaan la kulmo asxaabtayda. Laakiin duufaantii waxay markabka u kaxaysay dhanka koonfur, wuuna garan layahay jihada saxda ah. Markaas ayuu si lama filaan ah fikrad u helay, wuxuuna weydiiyey Ryu haddii uu jecel yahay inuu la safro. Ryu wuu yaabay markuu maqlay taas, laakiin Abel wuxuu yidhi waxaad iiga caawin kartaa inaan jidka saxda ah helo, kadibna waxaan ku heli karaa shaqo kaa caawisa inaad si wanaagsan u noolaato. Ryu wuu fekeray in muddo ah, ugu dambayntiina wuxuu go'aansaday inuu noqdo hage u ah Abel si uu ugu celiyo magaalada. Habeenkii wuxuu eegay beertiisa uu si weyn ugu dadaalay, wuxuuna dareemay murugo yar maadaama uu ka tegayo. Habeenkii wuxuu u sheegay Abel inuu baxayo si uu ula hadlo qof, laakiin Abel wuu isxakameeyey in uusan wax badan ka weydiin qofkaas. Dhanka kale Ryu wuxuu aaday harada si uu ula hadlo fardoolayda madax la'aanta ah oo uu u sheego inuu muddo dheer ka maqan doono keynta. Wuxuu ugu mahadceliyey inuu baray dagaalka, kadibna wuxuu soo bixiyey mindidiisa isagoo sheegay inuu si xad dhaaf ah u dagaalami doono caawa. Fardoolaydu sidoo kale waxay soo bixisay seeftii, Ryuna si xoog leh ayuu ugu weeraray isagoo weeraro joogto ah ku soo qaaday. Kadib dagaal dheer oo adag, Ryu wuu daalay, fardoolaydiina waxay ku soo noqotay harada. Ryu mar kale ayuu ugu mahadceliyey, fardoolaydu kama jawaabin. Laakiin markay gaartay booskeedii si lama filaan ah ayay u leexatay, waxayna biyaha ka soo saartay dirac sixir ah oo ah hadiyad sagootin ah. Ryu wuu dareemay xanuun niyadeed markuu helay diracdaas, wuxuuna mar kale ugu mahadceliyey fardoolayda madax la'aanta ah ka hor inta uusan gurigiisa ku laaban. Subaxdii xigtay, Ryu iyo Abel waxay isu diyaariyeen safarkooda. Ryuna wuxuu bilaabay inuu dareemo xusuus reebid sababtoo ah wuxuu ka tegayaa meel uu ku qaatay waqti badan. Markii ay socodkooda bilaabeen, waxay la kulmeen doofaar duur joog ah. Abelna wuxuu weydiistay in loo daayo dagaalka. Wuxuu u orday dhanka doofaarka isagoo seef wato, kadibna wuxuu adeegsaday xirfad dagaal si uu u jebiyo xayawaankaas. Ryu wuu la yaabay, wuxuuna weydiiyey waa maxay xirfadaha dagaalka. Abel wuxuu u sharaxay in dadka hubka isticmaala ay isticmaalaan xirfado dagaal. Habeenkii waxay ku seexdeen geed godan, subaxdiina waxay sii wateen safarkoodii iyagoo dhex maraya keynta. Waxay la kulmeen dad masduulaayo ah oo jooga duurka. Abelna wuxuu go'aansaday in jidka la bedelo halkii laga mari lahaa meeshaas sababtoo ah waa makhluuqyo xoog badan. Laakiin Ryu wuxuu dareemay in masduulaayadii ay weli daba socdaan xitaa markay jidka bedeleen. Abel wuxuu isdiyaariyey dagaal. Ryu wuxuu u sheegay in aad u badan yihiin, markaas ayuu go'aansaday inuu adeegsado sixir. Abel wuxuu mooday inuusan dagaalami karin la'aanta ushiisa sixirka, laakiin wuu la yaabay markuu arkay Ryu oo 4 masduulaayo isla mar ahaanta ku garaacaya tiirar baraf ah. Markii dagaalku dhammaaday, Abel wuxuu weydiiyey Ryu sixirkii uu adeegsaday. Ryu wuxuu ugu jawaabay inuu ahaa eclalan caadi ah, laakiin Abel wuxuu yidhi asxaabta aan leeyahay ee isticmaala dabaysha waxay mar keliya ku gambaan hal weerar. Adigu 4 baad isla markiiba adeegsatay. Ryu wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa in ay arrintu tahay dhibaato ku timid sixirka dabaysha sababtoo ah sixirka biyaha sidan ayuu caadi ku yahay. Abel wuu iska dhaafay fikirka arrintaas, wuxuuna yidhi aynu sii wadno safarka. Laakiin ka hor intaysan sii socon, Ryu wuxuu sameeyey 2 koob baraf ah, wuxuuna ku shubay biyo. Abel wuxuu arkay in uu isticmaalay duco kale markan, Ryuna wuxuu ku marmarsiyooday in laga yaabo inuu si qaldan u maqlay markiisii hore. Kadib Abel wuxuu siiyey Ryu lacag. Ryuna si farxad leh ayuu u yidhi tani waa markii iigu horreysay aan lacag arko. Abel wuu la yaabay sababtoo ah wuxuu u maleeyay in Ryu yahay sabool, laakiin wuxuu hadda ogaaday inuu si ka daran u sabool yahay sidii uu filayay. Kadib wuxuu u sheegay Ryu in ay jiraan 3 waddan oo waaweyn oo ku yaal dhulka dhexe, boqortooyada Nightly, Dibi iyo Handalo. Ryu wuxuu bilaabay inuu ka faaloodo magaca Dibi Empire isagoo sheegaya inuusan jeclayn magacaas. Intuu hadalkiisa wato, waxay gaareen meel bannaan. Si lama filaan ah, dhagax u dhow ayaa isdhaqaajiyey. Abelna si degdeg ah ayuu u jaray bartamaha. Abel wuxuu yidhi waa bahal naadir ah oo aad u xoog badan, weligayna ma arkin. Ryu wuxuu weydiiyey miyaan ugaarsanaa. Laakiin Abel wuxuu u sheegay in ayaan suurtagal ahayn in la dilo. Si lama filaan ah, masduulaayooyin yaryar oo ah Wyverns ayaa yimid. Ryuna wuu farxay sababtoo ah hadda waxay arki doonaan dagaal bahalo dhexdooda ah. Wyvernsyadii waxay bilaabeen inay dhagxaan ku ridaan Behemothkii iyadoo la adeegsanayo sixir, laakiin Behemothku wuxuu si fudud u qayliyey, wuxuuna joojiyey dhammaan sixirkii isagoo sababaya inay Wyvernsku dhulka ku dhacaan. Ryu wuxuu u sheegay Abel in xayawaanka weyn u muuqdo mid adeegsaday xirfadda baabiinta sixirka. Habeenkii iyagoo casho cunaya, Abel wuxuu weydiiyey Ryu wax badan oo ku saabsan xirfaddaas sababtoo ah wuxuu maqlay oo keliya in godad sixireed ay leeyihiin waxyaabo sidan ah. Ryu wuu farxay markuu maqlay ereyga Dungeon. Abelna wuxuu u sheegay in magaalada Lon oo ay socdaan ay ku taallo god sixireed. Ryu wuxuu xanaaqay sababtoo ah hore looma uusan sheegin arrin muhiim ah sidaas oo kale, wuxuuna weydiiyey haddii uu wax kale qarinayo.
abel wuxuu isna weydiiyey haddii rayuu ugu yaraan wax ka og yahay dadyowga dwarfes iyo elfes laakiin rayuu wuxuu ka codsaday inuu faahfaahin siiyo. Maalmihii xigay waxay gaareen buuro dhaadheer, rayuuna wuxuu yidhi in meel bini'aadam degan laga heli doono markay buuraha ka gudbaan. abel wuxuu weydiiyey sidee ku ogaatay taas. rayuu wuu is yidhi ma u sheegi karaa in masduulaay uu la kulmay oo uu wax badan ka baray adduunka. ugu dambayn wuu qariyey sirta wuxuuna yidhi waa cilmi ka baxsan fahamka aadanaha. kadib waxay maqleen dhawaaq yaab leh waxayna isku diyaariyeen dagaal. laakiin markii makhluuq xoog badan oo la yidhaahdo griffin uu cirka ka soo muuqday labaduba way argagaxeen. abel wuxuu bilaabay inuu neefta ku dhego. laakiinse rayuu si dhaqso ah ayuu arrinta u xaliyey isagoo hilib hawada u tuuray. abel isna wuu raacay waxqabadka griffinkii wuxuu qabtay labadii cad ee hilibka wuxuuna la duulay. labadii wiil waxay neefsadeen markuu ka tegey waxayna isla garteen in haddii ay la dagaalami lahaayeen wax sidan u xoog badan aysan wakhti dheer noolaan lahayn. intii ay safarkooda sii wateen abel wuxuu yidhi ma jirin bini'aadam la kulmay behemoths ama griffins boqolkii sano ee lasoo dhaafay. wuxuuna qiyaasay in buuraha dhaadheer ay yihiin sababta ay bahalladu uga fog yihiin deegaanada dadka. taas waxay xasuusisay rayuu in wifernsiyadii la dagaalamay behemothka ay ka yimaadeen dhanka waqooyi taasoo la micno ah in shimbirtu degan tahay meel u dhow. wuxuu ku saxsanaa sababtoo ah waxay si degdeg ah u heleen wiferns oo ku cuna bahal kale. rayuu wuxuu doonayay inuu la dagaalamo laakiin abel wuxuu sheegay in ugu yaraan 20 dagaalyahan khibrad leh loo baahan yahay si loola dagaalamo wifernska oo kale. rayuu wuxuu yidhi weerar laan lagama baxayo maxaa yeelay mar dambe lama baajin karo. wuxuu weydiiyey miyaad weerari kartaa haddii ay wiferns ku hoos yaalaan. abel wuu xaqiijiyey isagoo yidhi haa markaas waan la dagaalami karaa si dhow. rayuu wuxuu markiiba u baxay goobta isagoo akhrinaya duco been ah wuxuuna soo saaray 4 bara fiiqan oo uu baalaha wifernska kaga dhuftay. abel wuxuu fursaddaas ku dilay maskaxdooda laakiin markaas 2 wifern oo kale ayaa timid. rayuu wuxuu mar kale ku xidhay baraf laakiin markan wax duco ah ma akhriyin taasoo abel ka dhigtay mid shaki gala. si kastaba ha ahaatee waxay dileen wifernsiyadii waxayna ururiyeen dhagxaantooda sixirka kadibna waxay sii wateen safarkoodii dhanka waqooyi. laakiin halkaas ayay ku dhammaanaysaa muuqaalkaas. xasuuso inaad like dhahdo oo aad iska subscribe garayso kanaalka. waad mahadsan tahay daawashadaada waxaanan ku arki doonaa mar kale.